بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ودرسيني تفسير القرآن كها رمضان كأنه تلقلي جزء عام ودرسي سدحات هي سورة عبسة أيضا suuradihii labadii suuradood ka horeysay la mid tahay waa suura makiya waxay soo degtay inta nabigu sallallahu alayhi wasallam Makka ka hijroonin quraanka marxalada soo degayna waa ka soo sheekeynay waxyaalaha mabaadiida uu ka hadlo inta badan suuradani qaybteeda hore waxay ku bilaabanaysaa عنان أسلوبيسن أما لطيفا ونبي صلى الله عليه وسلم لو تشيدينيو ودعدو نبي صلى الله عليه وسلم يسقو سي يسيري كدبنا الله تبارك وتعالى سيدو نبي صلى الله عليه وسلم وتوسينيو أي كوب لابنيسا كدبنا waxaa ku xigi doonto laga waramayaa quraanka kariimka iyo sharaftiisa ilaahay aayaadkiisa iyo sharafta ay leeyihiin iyo inay malaa'ikta gacmahooda ku jirtaan suxufta quraanka kariimka ama aayaadka rabbi qaybta saddexaad waxaa laga hadli doonaa bini aadamka iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmooyinka uu galay laga soo bilaabo abuuristiisa adduunka markuu joogo iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala sidoo ugu diyaariyay wuxuu ku noolaan lahaa iyo markuu dhinto xataa sida loo karaameeyay oo aan dhulka korkiisa looga tagin meydkiisa xataa yaani la aasay oo qabri loo sameeyay intaas oo dhan baa laga soo hadlayaa kadib waxa laga hadlayaa bini aadamka iyo sida ilaahay cuntadiisa u diyaariyo waxa uu ku nool yahay noloshiisa ku tiirsanto cuntadiisa ay ku timaadaa ayaa laga hadlayaa sida ilaahay u diyaariyay tabaaraka wa tacaala aakhirka suuradu waxay ku gabagaboobi doontaa oo ka hadlaysaa nolosha dambe aakhiro iyo dadku say u qaybsami doonaan xaaladaasi markay timaado dadku say noqon doonaan iyo meesha lagu kala dambeyn doono ayay suuradu ku gabagaboobi doontaa insha Allah tacaala Allah marka tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay cabasa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu waji tubay وتولى وانا جيدسدي وجتوبك waxa la yiraahdaa in ruuxu markuu wax qoonsado wajigiisa ayaa ururaya jabhada kore wajigiisa laga garanaya marka taas la yiraahdaa wajitubka la yiraahdaa waa jeedsaday an jaahu inuu u yimid darteed al-a'ma ki indhahala wama yudrika maxaa ku ogeysiyay nabi maxamedow ninka indhahala لعله إنه مديه أما لعله وحو مديه يتزكى إنه إصداهريه أو أما سيذكر إنه وانقاته أو فتنفعه أي أنفعه الذكرى واند أنفعه أما من روح استغنى ديقتومي أو أن يعني الصبع أركب إنه صنعد أباهنين فأنت أذو له إساقاس أيات تصدى ayaad yaani waxa way u jeedsanaysaa ayaad qaabilaysaa ama u banbaxaysaa wama alayka korkaagana ma ahaanin alla yazakka inuusan isdaahirinin oo uusan iimaanka isku daahirinna adiga kuma saarna adiga mas'uuliyadaada ma aha korkaagana ma ahaanin wa amma man ida jaa'aka ku yimid maxamedow yas'a asagoo degdegaya oo khayr doona wal xaal huwa isagu yakhsha uu baqayo isagoo baqdini wado khayr doon oo degdegaya haduu ku yimid fa anta adugu anhu xaqiisa ayaa talaha ka mashquulaysa yaani waxa weeyaan waad ka jeesanood waad ka mashquulaysa intaasi hadda inoo akhrinay waa inta aynu niri waxay ku soo degtay qisadaasi ama dhacdadaasi nabigeenu la kulmay sallallahu alayhi wa alihi wasallam sida ay tilmaamayso ummul muuminiina Aisha radiyallahu ta'ala anhuma waxay leedahay suurada cabasa wa tawalla la yiraahdo
waxay ku soo degtay ninka la yidhaahdo ibnu ummi maktuum ma cabdiraxmaan baa ma cabdullaahi baa waa la yidhaahdaa ibnu ummi maktuum alacmaa ee indhaha la'aa bay ku soo degtay bay tiri see bay ahayd qisadaasi rasuulka ayuu u yimid ninkaasi nin saxaabi ah oo ka mid ahaa raggii aadaami jiray weliba salaada subax aadaankeedu adimi jiray nin markii dambena yani saxaabada waaweyn ka mid ah buu ahaa qiimo badan ku fadhiyey ninkaasaa nebiga u yimid sal alla alay wasalam markaasaa wuxuu uhi yaa rasuul allah arshidnii rasuulka ilaahay i hanuuni rasuulka ilaahay wax ii sheeg waxi bar buu leeyahy rasuulka markaa waxaa la jooga sal alla alay wasalam nin ka mida odayaashii qureysheed raggii uun bulshadu qadarin jirtay qureysheed oo gaal ah ayaa markaa nabiga la jooga sal alla alay wasalam oo rasuulku wax u sheegayaa rajana ka qabo inuu bal soo hanuuniyo wax ka yeelo nabigu sal alla alay wasalam indhoolkiibaa ku qayliyey oo yidhi yaa rasuul allah arshidnii u dhawaaqay dheh rasuulka ilaahay irshaadi rasuulka ilaahay hanuuni wax ii caddee wax ii sheeg buu leeyahy rasuulkuna ninkanuu ku mashquulsan yahay markuu intaa yidhi ayuu rasuulku markaa ka jeesaday indhoolkii ninkii kaluu ku jeesadoo qaabilay ee hadalku u socday rajadana uu ka qabay markaasi inuu soo jiido oo bal u xaqa qaato markaasuu nebigu wuxuu ku leeyahay ninkii isaga ahay odayga ahay gaalka ahaa ataraa maa aquulu ba'san hadalka aan ku leeyahay niyo waxaan kuu sheegayo ma wax dhibaa ku jira asaguna uu leeyahay maya intaad ii sheegtay hadday arrintu tahay wax dhiba ma laha markaasaa aayadahani soo degeen marka nebigu sal alla alay wasalam ijtihaadkiisa iyo dadaalkiisu meel buu ku jeedaa wuxuu rabaa ninkan indhoolka ah ee muslimka ah ee arrinkiisa inuu u dambeeyo laakiin bal ninkan gaalkaee odaygay rajada uu ka qabo haddii uu soo islaamana uu isleeyahay dad badan buu sabab u noqon karaa in iyaguna soo islaamaan nebigu saasuu istusayey sal alla alay wasalam markaasuu isaga isku mashquuliyey kii indhoolka ahaayee dhawaaqayana nebigu waa ka jeesaday sal alla alay wasalam arrintaasaa marka nebiga sal alla alay wasalam waxoogaa canaan usluubaysan oo latifan ayuu marka rabbi u jeedinayaa tabaaraka wa tacaala rasuulkiisa muxameda sala allahu calayhi waalihi wasalam qur-aanka marka way ku timaadaa nebigu sal alla alay wasalam mawaaqifta qaarkood inuu arrini la qumanaato markaana waxyi cad oo hagaya uusan jirinoo masaladaa khaaska ku saabsan uu ijtihaadayaa marka nebigu sibaa la qumanaanayso isleeyahy sidanaa fiican sidii uu marka ku tilaabsanayaa nebigu sal alla alay wasalam haddii markaasi waxoogaa sidaa uu nebigu damcay waxoogaa laga fiican yahay marka waxyi baa markaa imaanaya oo nebiga toosinaya sal alla alay wasalam oo saxaya tani marka kuwaasay ka mid tahay qur-aanka meelo kale ku timid waxaa ka mid a nebigu sal alla alay wasalam munaafiqiintii yani waxa weeye ayaa u yimid dagaalkii marka loo socday tabuuk xaaladuna adkayd waxay idan bay weydiisteenoo fasax bay weydiiseenoo fasax bay dhaheen asagoo nebigu sal alla alay wasalam arrinta yani markiiba fasax buu iska siiyey idan buu siiyey cafa allahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana baa layidhi alla waaba ku cafiyee maxaad ugu kaadin weyday ood u idantay baa layidhi waxaa ka mid a maalan haniimada dagaalkii beder waa kuwii nebiga sal alla alay wasalam waa kii dagaalkii beder ku adkaaday quraysh kaga adkaaday waa in kii maxaabiis fara badan ka soo qabsaday markuu ka soo qabsaday maxaabiistii see la yeelaa yaa laga wada hadlay marka isaga iyo asxaabtiisii raggii la taliyaashiisa aha nebiga sal alla alay wasalam marka ninna wuxuu soo jeediyey hala laayo ninna wuxuu soo jeediyey aynu madax furasho ka qaadanno nebiga sal alla alay wasalam madax furashadii buu waafaqay madax furashaa laga qaatay markaana haniimada iyo xoolaha gaalada laga furto inay bannaantahay inaysan bannaanayn wax daliila ma yaalla markaa oo la raaco laakiin way ku ijtihaadeen waa ka marka fii suurati tawba aakhirkeeda ilaahay fii suurati alanfaal aakhirkeeda waa ka rabbi tabaaraka wa tacaala marka kaga hadlay oo arrintaasi nebiga sal alla alay wasalam markaasi iyadana canaantu ku timid way macnaha maa kaana lilnabiyi waaladiina aamanuu maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra xataa yudqina fi lardi sidaas wey marka usluubkaasi qur-aanka meelo dhowruu ku yimid haddana maca daalika marka nebigiisa uu canaananayo allah tabaaraka wa tacala canaan u jeedinayo ama la toosinayaba usluubka loola hadlayo waa usluub aad u latifan waay usluub aad u usluubaysan oo qurux badan ayaa loola hadlaya taasay marka qisadaasi ayay ka hadlaysaa allah tabaaraka wa tacaala marka wuxuu leeyahay oo murtida hadalku uu yahay ninkan indhoolkee khayrdoonka ah
ayay ahayd inaad mudnaanta siiso kan deeqtoomay ee gaalka ah ee la kari la'yahay inuusan istaahirinoo iimaan qaadanin adiga kumaba saarnaba in calayka illa inaad gaadhsiiso unbay adiga ahayd haddaad gaadhsiisay intaa ka badan inaad isku dhabarjabisa maba ahaynba kan khayr doonka ee ku doonahaya ee wanaagga soo doontay kanay ahayd inaad mudnaanta siiso hadalku saasuu u dhacaya cabasa marka waa weji tubay nebigu sal lla lay slam markuu indhoolkii u yimid isagoo sidaa u mashquulsan ayuu xoogaa wejigu yani kahashadii baa wejigiisa laga dareemay waa weji tubay nebigu sal lla lay wasalam watawallaa waana jeesadayoo indhoolkiibuu ka jeesaday an jaa'ahu inuu u yimid darteed buu u jeesaday ama u weji tubay an jaa'ahu inuu u yimid daraaddeed alacmaa kii indhaha la'ah culimmadu waxay yidhaahdaan maxaa magaciisa loo sheegayo kii indhaha la'aa loo yidhi waxay leeyihiin waxaa meeshaa ku jirta isaga laftiisa cudurdaarkiisaa la muujinayaayo haddee inuu nebigoo mashquulsan isaga laftiisu u dhawaaqaayey soo khalad maaha marka waxaa la leeyahy wuuba indhala'aaye in lala joogo nebiga iyo inuu cid la hadlayo iyo indhool buu ahaa marka kelimada alacmaa in la cabiro sifadiisii laga cabiraayey isagaa loo cudurdaaraya macnaha kii indhahalaa inuu u yimi daraaddeed ayuu nebigu u wajitubo u jeesaday wamaa yudriika baabanka hadalkii baa toos nebiga loogu jeediyey wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow ninkan indhoolkaa xaalkiisa maxaa ku ogeysiiyey lacalahu inuu wuxuu mudan yahay yatasakaa way inuu isdaahiriyo oo sharaa'icda iyo cilmiga iyo waxaad u sheegaysa inuu qaato isku daahiriyuu mudan yahay ayb aw amase yadakaru inuu waano qaato ayuu mudan yahay oo fatanfachu markaa ay anfacdo addikra waanadu ay anfacdo wacdiga iyo waanada inuu wax ku qaato mudan yahay marka waa nin doonaya inuu isdaahiriyo oo diyaar ah wacdiga iyo waanada iyo waxaad barayseed u sheegaysana intifaacsanaya marka kan waay kanay ahayd inaad muxuu ahaaye xaalkiisaasi maxaad ka og tahay waay markaad ka jeedsanayso amaa man cidda istaqnaa deeqtoontay yani waxa weeyaan waa gaalkan uu nebigu ku mashquulsan yahay ama gaalo badan badhe odayaashan uu ku mashquulsan yahay ee waxbaba rabinba waxay isu arkaanba inay waxaan oo dhan ka deeqtoomaan inaysan u baahnayn bay u arkaan sidaas daraaddeed mid deeqtoomay oon kuuba baahnayn inuu ilaahay u baahan yahin aan isuba arkinba diintaada inuu baahan yahin aan isu arkinba inuu gaadhayba macnaa isku fillaanba gaadhayba mid isu arka amaa man istaqnaa fa anta adugu lahu isaga ayaad tasaddaa ayaad u bambaxaysaa ama ayaad qaabilaysaa kaasaad ku jeedsanaysaayoo qaabilaysaa wamaa calayka korkaaga ma ahaanin ba'sun waay wax baasa korkaaga ma ahaanin wax dhiba kaa soo gaadhi maayo anlaa yazakaa inuusan isdaahirinin hadduusan isdaahirinin oo iimaanka qaadanin oo gaalnimadiisa iyo wasakhda ku dhinto adiga waxba kaa soo gaadhi maayo adiga nebi maxamed sal alla alay wasalam wax kaa soo gaadhaya haba yaraatee ma jirto sababtu maxay tahay in calayka ila albalaaq waay korkaaga inaad gaadhsiisood u sheegto unbaa mas-uuliyaddeedu ku saaran tahay waay waad u sheegtay inaad kaga gaabsatay ahayd ha isku sii dhibin marka ha isku sii taxallujin ha isku dhabar jabin wa amaa man cidda jaa'aka kuu yimid waa indhoolkii yascaa asaga oo degdegaya yani waxa way fii dalabi alkhayr waay khayrka raadintiisu u degdegaya wanaagdoon waay arrintaasu u degdegaya walxaal huwa isagu yakhshaa uu baqayo baqdin ilaahay baa ku jirta isagoo baqaya yuu haddana degdegaya oo wanaagdoon yahay kaa isaga ah fa anta adugu canhu xaggiisa ayaad talahaa ayaad ka mashquulaysaa yani waxa weeyaan talahaadu bimacnaa tatalahaa waa yani waad ka shuqloomaysaayo kaasaad macnaha waxa way u jeedsanaysaa ku mashquulaysaa kanna waad ka mashquulaysaa waad ka jeedsanaysaa tatashaaqal waay waad iska mashquulinaysaa waay arrintaasi marka intaasi waa inta hore oo waxay ku saabsan tahay qisada indhoolka waxayna tilmaamaysaa mar walba dadka khayrka u diyaarsan ee wanaagga doonaya ee iimaanka doonaya ee diintan raba ayaa mudnaanta leh iyaga mudnaanta la siinaya amaa dad aan uba diyaarsanay oo sii jeeda sax digniinta waa la gaadhsiin laakiin hadday isqabato kanaa mudnaanta leh kan diyaarka ah ee khayrka doonaya ee soo diyaargaroobay ee wanaagga u ordaya kaasaa wakhti la siin kaasaa mudnaanta la siin asagaa mudan in la siiyo waay sidaas way darsiga laga qaadanayo qisada iyada
كلا إنها تذكرة كلا كتشوغي أرنتا تشوشي إنها إيضو تذكرة إنها ضميرك وحقون نقوم بإليه سورة دني أما عضدة أما واندة الصورة أو العظة إنها صورة دني أما إنها واندني تذكرة ووان يعني وحوي صورة دني ووان ويي وانينيسا dadkoo dhan bay waaninaysaa waanin waay waa wax sheeg faman ruuxii shaa doona dakarahu wuu xusaa cidii doontaayay way xusi dakarahu yani suurada ama quraankii oo siyaaqa laga fahmayo ayaa loo celinayaa iyo ilaahay aayaadkiisa tabaaraka wa tacaala dakarahu quraankii waa xusaya waa akhrinaya waa ku dadaalaya waa kuwaana qadanaya waa baranaya waa ku dhaqmaya dakarahu quraankii cidii rabtaa qaadan طبعا rabitaankiisa kaliya kuma xidhnee cidii rabtaa allana la rabo wama tashaa'una illa an yasha Allah laakiin marka hore khayrka inuu adoonku qaato uu galo oo intifaacsado waa inay ka timaado dadaal xaqiisa waa inuu diyaar garoobo waa inuu asagu diyaar u yahay waa inuu istaahilo allana tabaaraka wa tacaala markaasi adoon diyaar ah oo istaahila الله تبارك وتعالى وأكل مينيا وسينا يا مرادك يسوي معنا فمن شاء ذكره في صحف مكرمة سورة دني أما قرآن كورن بله أيام مركل لقى والرمي يعني وحويان أما سورة دني أما قرآن كور لقى فهمي سياق لقى فهمي في صحف بو هذي وراق دحضت مكرمة والله ما موصي ولا كرامي إله أكتيس لقو كرامي مرفوعة والله كوري لي oo laga koryeelay qadarkeeda la sare yeelay mutahharatin oo la daahiriyay laga daahiriyay wasakhna laga daahiriyay sidoo kale tana siyaada iyo nusqaana laga daahiriyay bi aydi safaratin malaa'ig gacmahooda ayay dhexdooda ahaatay bi aydi safarada waxa la yiraahdaa waa malaa'igta safiirada ah malaa'igta irgada ah ee ilaahay soo diro ee adoomada iyo alla u dhaxaysa ayaa la yiraahdaa safara saas macna yani safiiro ama safarada waxa laga wadaa bimaana kataba malaa'ig wax qorta oo qorayaal ah ayay gacmahooda ku jiraan quraanku suxuftan gacmahooda ku jiraan bi aydi safaratin malaa'ig wax qorta ama malaa'ig safiiro ilaahay soo dirsaday ayay gacmahooda ku jiraan suxuftaasi كرام ملائكة سوى وناكسن يعني وحويان صوصوبانو إلهي أكتيس تبارك وتعالى لكراميه شرف له برارة أو باريال يعني وحويان أتقياء وإلهي أمر كيسان خلاف لا يعصون الله ما أمر إلهي متشبيان وباريال ومعنى ملائك نوعاس أي قعمه ذو كتشران معناه وحلقها الله يهلكن قرآنك آياتك إلهي الشرف توضع لقاها الله سيد إلهي أشرف تبارك وتعالى قرآن كان يصحفته كو قريهي وحو ربي تلمامي تبارك وتعالى إنو كو إنيهين كولا كرامي صحف وراقه شرف قيمة له إلهي أكتي سلقو كرامي والله ما موصي أي كويالا قرآن كويالا لكوري ليو قدر كيدي الشرف كيدو سريو لداهيريي لما السياديو sidii ilaahay u soo dajiyay waxba lagu ma siyaadiyo waxna laga ma dhibo siyaado iyo nusqaan baa laga daahiriyay waxa kale oo laga daahiriyay waxa la wixii wasakh oo dhan iyo wixii qashin oo dhan waa laga daahiriyay suxuftaasi quraanku ku qoran yahay malaa'ig baa haysa malaa'igtaasi alla wuxuu ku sifeeyay horta waxbay qoraan way qoraalka yaqaanaan waxa kale oo culimada qaar kood leeyihiin ma aha waa safar bimaana وصفيره ومحوها وملائكته إلهي وحيك كسو قادة أما إلهي أوامرتيس سو قادة أدومد سو قارسيسة فوليسة حول بالله سو حلساري مركا ملائك نوعاسو صفير رأى ولصودر صود إرقوينا أي قعنتو ذا كتشرا ملائكتي بالسيسي يهدنا وملائك شرف له وكرام له إلهي كرامي تبارك وتعالى أبور كودنا وكراميسيه النور بيكسميسين ملائكته كأبورين
dabeecadooda iyo dhaqankooda iyo afcaashooduna way karaamaysan tahay oo iyadana sharaf bay leedahay laana wax weeye khalad ma sameeyaan khaladna kama yimaado xumaanna kama soo fusho waa bararatin waa baariyaalo ilaahay bay tabaaraka wa tacaala ateecan mana caasiyaan waa atqiya ilaahay tabaaraka wa tacaala malaa'igtu sidaas weeye malaa'igtu sida bini aadamka oo kale maaha iyo jinka oo kale maaha jinka iyo malaa'ig iyo bini aadamka iyo jinku ilaahay bay caasiyaan mar waa hagaagaan qaar mar ilaahay bay caasiyaan qaarkood ilaahay bay cisyaankiisa ku jiraan qaar muxuu ahay waa hagaagsan ku hagaagsan laftoodu marka qaarkood way yara qaloocanayaan mar bay ka siid calaynaysa laakiin malaa'igtu iyagu mar walba ilaahay bay adeecayaan tabaaraka wa tacaala bararawe kala ka jooge arinta aad samaysay ka joog innaha ayadu suuradani tadkiratun wa waano faman ruuxi shaa doona dakarahu wa xusuusanaya quraanka waa kuwaana qaadanaya fi suhufin buu ahaaday waraaqa dhaxdood mukarramatin oo la karaameeyay oo la maamuuso la sharfay ilaahay agtiis marfuucatin oo la kor yeelay mutahharatin oo la daahiriyay biaydi safaratin kuwaasoo malaa'ig safira gacmahooda ku sugan ama malaa'ig wax qorta kiraamin malaa'igtaasoo wanaagsan oo sharaf leh bararatin oo baariyaala inta markii laga soo gudbay quraankii iyo suuradan iyo ilaahay aayaadkiisa qiimaha inta leeg loo yeelay kadib baa waxa halkan laga guda galay marka qutila al-insanu ma akfarahu bini aadamka sida ilaahay uu tabaaraka wa tacaala ugu nicmeeyay iyo nicmada ilaahay sidoo ugu jisaarayo sid abaal xumadiisa sida uu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ugu nimceeyay laga bilaabo abuuristiisa ilaa quudintiisa gacan ku hayntiisa nicamkan ilaahay siiyo tabaaraka wa tacaala iyo hadana dhaqan xumadiisa ayaa laga hadlaya halkaas laga bilaabo الإمام القيم الإمام محوها ابن كثير وحليه ملائكة صحفة القرآن كحنبارسا ما دام أي براريهن كرامة الشرف له روح القرآن كحنبارسا نوحل الدنيا إنه صاصو كلا نقض باري هدنا تقيه قرآن ككو عمل فلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم روح القرآن كيقان ماهر كأه سفي عن قرآن كأو يقانا malaa'igta bararada ee kiraamte wanaagsan buu la jiran koodaya ruuxa quraanka yaani akhrinaya laakiin kufaya yaani wax weeyaan yaani ku rafaadsanna laba ajir buu leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam marka quraanka hadii ilaahay ku baray waa inaad dhaqankiisi iyo wanaagiisi laga helo qutila wala la'naday al-insanu insanki wala la'naday insankan laga hadlayo waa insanka inkirsan isa soo saarida isa soo saaridii iyo in la soo saari doono la abaal marin doono la xisaabtami doono yu inkirsan yahay wixii ba marka wax weeyaan adilla loo sameeynaya qutila wala la'naday al-insanu insanki ma shay ajabadan ayaa akfarahu gaalnimo badnaysiiyay shay la yaable ayaa kaafir ka dhigay macna maadaasi taajubna wala laga dhigi karaa istifhaamina wala laga dhigi karaa ama ma maxayba akfarahu gaal ka dhigay قال كيال من أي شيء حقيسة أيو خلقه الله كأبوري شيء كيسيبا خلقه الله وإساق كأبوري بل شيء قال لك أبوري وكسو كذا أسل كيسة أوفير سوا ولقد شوابو حليل من نطفة عن طوف منيئة حق إذا أيو خلقه الله كأبوري خلقه من نطفة فقدره مركاسو الله قدري وكان قوي حلقة وضع قدره وشرح دونه ثم مركا كدب مركو قدري ولا اسكو هاجاتشي ولا تشانغوي السبيل تشيدكي أيو يسره أفضذي ثم مركا كدبنا أماته ودلي وغيري دي سيبا كتمت فأقبره قبر أيو أيالي دولك كوركي سلقا تجيني حدنا والا كرامي هدور دنتيو دولك هوستي سالغو أسطري ثم مركا كدب إذا قرت شاء دون الله أنشره وصوصاري مركو دوننا ووقت جيسي لقارنا ماشي لقو آسيا لقليبا ديب لوغا سو علينيا وديب الله سو نولينيا كلا هكا كلا هكا جوغو حمان تهجوجيو أما كلا أرنكو سامعها سيد ابن جرير أوليه ليس الأمر كما يقول الكافر من أداء حق الله أرنكو معها
sida uu gaalku sheeganayo oo xaqi ilaahay inuu gutay arrinku ma ah kalla sama ama kalla ka joogi lamma yaqdi muusan gudanin insaankii ma shaygi amarahu alla uu amray isagoo la abuuray oo wanaagaas oo loo sameeyay haddana amarkii ilaahay muusan gudanin waajibaadkii faraa'idii la saaray iyo xaqi ilaahay muusan gudanin falyanzur al-insanu mimma khuliq falyanzur al-insanu ila ta'amihi inta marka waxa laga hadlay bini aadamkan madaxa adag ee ilaahaysa isku taagaya ee khaaliqii abuurtay inkiraya ee xaqi ilaahay soo dejiyay la dagaalamaya ee wixii loo sheegay iyo waxyigii rasuushii loo soo diray cagta ku dhufanaya ku gacan saydhaya ibni aadamkan bal sidiisaba habaarka qaba bal meeshuu ka soo jeediyo wuxuu yahay soo isweydiin ma mudna haddii la fiiriyo dib loo fiirsado meeshuu ka soo jeedo iyo waxa uu ku dhaqmayahay isma laha waa yacni nicmadiid iyo gaalnimo iyo kufri iyo madaxadayg iyo juxuud waa maxaa keenaya waa bal maxaa laga abuuray ha u fiirsado min ayi shayin khalaqahu muxuu ilaahay ka abuuray haddii dib loo fiiriyo dhibic mani ah ayuu ilaahay ka abuuray yacni wax weeyaan manida ragga ka timaada marka kadibna ukunta hooyada la falgalaysa halkaasuu ka abuurmaya waliba dhibicdoo dhan meehee dhibicdaasa wax yar laga siibayaa xayawaanka minawiga ah ee bini aadamka yani waxa weeye abuurkiisa sababta u yahay aabbaha ka imaanaya kadibna la falgelaya ukunta hooyo la falgelaya taasaa laga abuuray shayga laga abuuray marka waa shay liita min maa'in mahiin waa biyo liita oo muxuu ahaayey jilicsan oo aan qiimo lahayn oo marada markay kaga gaadhaan aad iska dhaqayso oo jirkaaga aadan u ogolayn oo wasakh ah waxaasaa laga abuuray markii la abuuray kadibna faqadarahu ilaahay baa qadaray qadaridaasi laba macnoba waa laga dhigi karayaa in la yidhaahdo alla tabaaraka wa tacaala wuu jaangooyey wuxuuna u diyaariyey wixii uu munaasib ku ahaa iyo maslaxadiisi oo waxay la mid noqonaysaa yani wakhalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiiran oo kale la mid noqonaysa ama sida ibnu kathiir uu leeyahay waxay noqonaysaa faqadarahu alla wuu qadarayo wuxuu qadaray markii la abuuray isagoo uurka hooyadii ku jira xadiid baana ku tusaye ayaa waxaa la qadaray oo la qoondeeyey ajashiisa cimrigiisu intuu noqonayo risiquu cuni lahaa camalkiisiiyo wuxuu samayn lahaa inuu ahlu naar yahay inuu ahlu janno yahay waa la qoondeeyo waa la qorsheeyey faqadarahu wax walboo isaga ku saabsanna waa la qadaray waa la jaangooyey waa qadaran yihiin halkaasaa ilaahay dhigay tabaaraka wa tacala wax qorshaysan waa markii kadibna caloosha hooyiya uurka hooyiya makaanka markuu muddadii ku qaatay wax walboo isaga ku saabsanna la qadaray oo la qoro la qoondeeyey markaa kadib ayaa alla tabaaraka wa tacaala haddana wuxuu u fududeeyey jidkiibuu u fududeeyey laba tafsiir baa jira mid wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa jidkuu hooye kaga soo bixi lahaabaa ilaahay u fududeeyey ficlanna macnahaasi waa macno saxa maxaa yeelay ilmuhu markuu uurka hooye ka soo baxayo meesha uu soo marayo waa meel cidhiidhi ah ilmo 3 kiilo ah 4 kiilo ah 2 kiiliya badh ah ayaa meesha cidhiidhigaa soo maraya haddaan ilaahay fududayninna ma soo mari karo haddii adduunka khubaradiisu isu tagaan ma soo marin karaan haddaan ilaahay fududaynin tabaaraka wa tacaala uma sabiila yasara jidkuu hooye kaga soo baxay baa haddana loo fududeeyey waa macno wey in la fududeeyo waxaad ku garanaysaa shayga sidiisaba meeshuu hal mar soo maray waa lagu celin karaa haddii hadda la yidhaahdo ilmaha hooye ka soo baxay mar labaad dib ha loogu celiyo laguma celin karayo marka taysiir rabbi baa ku jira jidkii baa la fududeeyey macno waa macnahaas waaye macnaha labaadii wax weeye in la yidhaahdo summa sabiila yasarahu jidkuu mari lahaa ayaa loo fududeeyey oo khayrkii iyo sharkii labadii jid midkuu qaadi lahaa ayaa loo cadeeyey oo loo fududeeyey macnahana waa midoo waxay noqonaysaa marka inna hadaynaahu sabiila ila macnata jidkii baan u cadaynay labadaa jid ama kan qaad ama kan qaad ayib uma markaa kadibna amaatahu allaa dilay maxaa laga wadaa markuu dhimanayo wakhtigiisu dhammaado amar xagga ilaahay kan yid buu ku dhimanaya nafina wakhtigeeda ka hormari mayso
طيب harku had dhintay markuu dhintay hadana lama tuurin oo banaanka laguma tuurine Allah tabaaraka wa ta'ala qabri buu u yeelay waa karaameyn kale waa yani bini aadamka kiisa gaalka iyo kiisa muslimka toona dhulka korkiisa lagaga tagi maayo markuu dhinto hatta gaalada hadii iyagu is-aasi waayeen oo gaalkan wax aasan la waayo oo gaaladiisii iyo qaraabadiisii waxa aasay muslimiintu inay aasaan waay waa in yani dhulka la geliyo qabri buu ilaahay u sameeyay waa karaameyn kale waa markii uu muddo ku jiro maqnaado qabriga ku jiro waqtigii loogu talagalayna la gaadhana thumma idha shaa ansharahu markuu doono alla dib u soo celino uu soo nooleyn su'aashu marka waxay tahay war Allah halka ka soo bilaabay ee sida uu abuuray ee inta soo mariyay inuu mar laba dib u soo celiyo maxay ku tahay waay wax culus ba sidaas way macna ibni aadamka inta loo sameeyay kalla lamma yaqdi muusan gudanin ma amarahu wuxuu ilaahay amray waxay ahayd inta hadii loo sameeyay ya abaalku wuxuu ahaa inuu abaal gudo abaalku waxa weeye inuu rabbigi ateeco inuu aqoonsado waa la abuuray halkaas la soo mariyay inta soo marxala la soo mariyay gacanta la igu hayay ilaahay baa ii fududeeyay ilaahay se inuu aqoonsado laakiin kadibna uu amarka ilaahay iyo sharcigiisa fuliyo maya waa ka madax taagay kalla lama yaqdi ma amarahu amarka ilaahay ma uusan gudanin halka culimada qaar waxay leeyihiin hadii insaanka oo dhan laga dhigo gaalka kaliya aan laga dhigin waxay noqonaysaa muslimka laftiisa amarkii ilaahay siiyo dhan ma wada fulinin bini aadam baa leeyahayo mar walba galab iyo wax ka khaldama la waayay maayo inta kadib Allah tabaaraka wa ta'ala mar kale waxa la yiri bal hafiiriyo bini aadamkani cuntadiisu say ku timaado falyandur hafiiriyo al insanu insanki ila ta'amihi cuntadiisi quudkiisa bal hafiiriyo see ku yimaada annagu hafiiriyo sababna inaan soo shubna inaan shubnay almaa bihi sabban shubid bihi inaan samada ka soo shubnay bal hafiiriyo haw fiirsado way thumma markan bihi soo shubnay kadibna shaqaqna waan jeexnay al arda dhulkii baan jeexnay shaqan jeexid bihi dhulkay galeen abuurkii dhulka ku jiray iyo wixii dhulka hoostiisa ku jiray bay gaadheen kadibna wixii dhulka ku jiray baa soo baxay carradii baa kala dildilaacday si ay u soo baxaan doogan iyo dalagani uga soo baxo dhulkii baa la baneeyay oo la dildilaaciyay wayla wax weeye waxaan soo baxayay dhulka ma jeexi karo isagu geed yar oo jilcisan oo curdun ah oo markaasi muxuu ahaayay dhulka hoostiisa ka soo baxayay carradaad adagtay inuu isagu kala jeexo madaxa la soo baxo suurtagal ma ah laana waxa ma awoodi karaba laakiin jeex rabbi baa ku jira thumma shaqaqna al-ardha shaqan dhulkii baan dildilaacinoon jeexnay si ay uga soo baxaan yani dalagii iyo doogii iyo geedii wixii ka soo bixi lahaa fa anbatna markaasan soo saarnay fiiha dhulka dhexdiisa waxaan ka soo saarnay habban waa badarka waa raashinka cuntada asaasiga la cuno waa bariiska iyo wuxuu ahaay qamantida iyo masagada iyo yaryareyda iyo badarka waa habbantu wa cinaban baan ku soo saarnay iyo cinab waa canabka waa wa qadban iyo yani nabaadka isaga oo qoyan oo curdanka ah la cuno waxa loo badan yahay inuu yahay xooluhu waxay cunaan waxa la yiraahdaa geed waxay ku fasiraan leeyahay alfisfisa oo xooluhu cunaan waa yani geed curdan ah oo jilicsan oo nabaad ah oo dhulka ka soo baxa waana la beeraa hadda looda la daajiya xooluhuna waa daaqaan loodu markay daaqdana aad bay u darartaa يعني وحوي برسيمنا ولا يدهدا البرسيم الحجازي يو كلا بحا مركا جيد نوع سواي مركا حولها داقة وداقة حولها ورأي رأي كلا وحوليه مفسرين تقاركود محل ما وحكست أو السجو قيان لعنو من بني آدم كها عنو أما حوله عنو نبى ليدهدا يعني وحوي قض بقى ليدهدا ومركاسي كبشكي يحيل قيان كلو عني أي سوق لي وزيتون زيتون بنقصه صارني زيتون كوا يعني إدام كيوه زيتون كما كان زيتون كان نوقنا كان نجا عن زيتون كان جوافة ليدهدا زيتون كوا كان سليد لقى ميرو وانت بدن الشام كبحو إسبين يدولك كبحة يعني واحد أندلس كبحة كاسها ليدهدا مركا إسقى وحى ماشي الله كياني إدام نوون نقضايو وسليد هذا الرشين كان لقو إدانتا وليبا بركيسن دانك كلنا والله سب كذا
طيب ونخلا بان كسو سارني ونخلا وان سو سارني دولك دخديسي نخلا بيه سو دغاي waxaan ku soo saarnay geeda timira وحدائق iyo asendooyin beera waaweyn gulban oo kulansan yani wax way waaweyn ama yani wax way laamahoodu ay isgaleen gulbiga waxa la yiraahdaa yani ninka tunka weyn ruuxa tunka weyn yani garbaha inta u dhaxaysa aad u weyn baa la yiraahdaa gulbiga la yiraahdaa asalkeeda waxaana laga wadaa geeduhu markay aad u waaweyn jiridoodu weyn tahay adag yihiin ayagu haddana kulmaan oo isdhex galaan ayaa la yiraahdaa waxadaa'iq gulban wa asendooyin geedahoodu waaweyn yihiin oo waliba ay kor u baxeen way haddana isdhex galeen wa faakihatan baan soo saarnay faakihadii waa waxyaalaha midhaha lagu faakahaysto qudaarta yani wax way cuntada asaasiga ma laakiin waa lagu faakihaysta saas way macna wa abban baan ku soo saarnay daaq abigana isagana daaq baa loo badan yahay inuu xooluhu ay cunaan intaasaan iyadana ku soo saarnay abigaasi xadii waxa sugan athar Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ardaa inuu suurada akhriyay markuu soo gaaray halka ayaa wuxuu yiri qad arafna al-faakihata famal abu faakihada garanay abigani muxuu ahaa buu yiri waa Umar baa isweydiinay markaas wuxuu yiri la'amruka ibn al-Khattab in hada la huwa takalluf isagii hadana isu jawaab wuxuu yiri adiga hadaabad garatayba inuu yahay nabaad ilaahay soo saaray intaba hadaad ka fahamtay wixii inta ka dambeeyay noocu yahay inaad si tafaasiil si raadiso aba takalluf buu maxaa ku diray adiga maqsuudka fahamtay way macna maqsuudku waxa weeye waxyaalaha ilaahay soo saaro adoomadiisa ku galadaysanayo inay ka mid tahay fahamtay inta kadib inaad si aad takalluf weeyaan buu saas way macna adiga abigaasi inuu daaq yahay sidaas ay ku fasiraan culimada qaar kood intaas waxaan u sameeynay buu alla yiri mataacan raaxayn lakum idinka la idin raaxaynayo iyo wali an'aamikum xoolihiin idinka la idin raaxayn qaar idinka cunaya qaarna xoolihiina daqataan baa cunaya idinkay raaxa idin tahay marka oo la idinku nicmayn la idinku barwaaqaynay tanna waxay marka la daliil u tahay Allah tabaaraka wa taala intuu biyaha kor ka keenay dhulka daaqa ka soo saaray dalag ee dhulkii oo meeyda nooleeyay waxay u fududahay oo aan ku adkayn inuu idinkana marka dhimataan kadib dhulka idinka soo nooleeyo idin soo saaro tayib inta markii laga baxay kadib waxa la guda galay qiyaamada iyo dadku say noqon doonaan iyo sida loo qaybsami doono laga hadlo fayda goorti jaad ay timaado as-saakhatu ti yani wax way qayladeedu wax dhaga tirays saakhada wax la yiraahdo midii wax maqashiinaysayna waa la yiraahdaa midii qayladeedu ay darnayd dadka dhaga tiraysayna waa la yiraahdaa wa afuufista buunka la afuufayo ama qiyaamadana waa la yiraahdaa labada waa lagu fasiraa markay timaado yawma maalin ay timaado yafiru cararayo almar'u ruuhu min akhihi walalki buka carari wa ummi hooyadii buka carari wa abihi iyo abihi wa sahibati iyo xaaskiisa wa banihi iyo wiilashiisa likulli imri'in ruux kasta waxa u sugnaaday oo minhum iyaga kamida yawma idin maalinka sha'nun arrin baa u sugnaaday oo yughnihi ku filan kaga filan wax kale oo dhan tayib maalinka markay timaado wala kala cararaya lababa waa loo kala cararaya ruuxul batiisa haysata tu kalena kan shabaab uma hayo waa mid labaade dadkii eheladiisa aha wuxuu uga cararayaa ama wax ku qabsadaan laana maalinkaasi ruuxu wax ka dhacsan kara ama wax ka daadsan kara waa ku tacalluqaya saas daradeed kii aad taqaanay iyo ehelkaagii iyo kulli waxaad ka cararay ama wax ku qabsadaan dhanka kale weeye waxaad uga cararaysaa taadaaba ku saaqatayba taada ka siid calisto taada ku haysata sidaas way macna sida loo dhigay waxa la hormariyay walaalkii waxa lagu xijiyay hooyadii waxa lagu xijiyay aabihii waxa lagu xijiyay xaaskii waxa lagu xijiyay caruurtii waxay leeyihiin culimadu tartiibkaasi loo kala hormariyay waxay ku tusaysaa bini aadamku soo u kala jecel yahay waxa dii lagu yiraahdo walaalkii buu ka cararay bimaana waxa dhici karta inaad walaalka ka cararto laakiin aadan ilmahaaga ka cararin tayib marka walaalkii baad ka carartay laakiin waxa la isweydiinaya tayib hooyadii ma ka cararay markaas la yiri hooyadiina wuu ka cararay hooyadii hadduu ka cararay wali waxa tagan mid hooyadii ka cararay aaba ka cararin baa jire aabana ma ka cararay waxa la yiri aabiina wuu ka cararay kuwa kasii hooseeya jira marka oo kaasii xiga oo iyaga lagu nafbaxo kuwii ba hadana la keeno waxa la yiri xaaskiisiina ka carar waxaan marba rag baa saxaska ka carar laakiin caruurta aan ka cararin
caruurtii baa leeyahay haddana caruurtiiba ka carar meeshaasi waxa weeye naftaada la baxsawa sida la isu daba dhigay bimacnaa waxay ku tusaysaa bay leeyihiin bimacnaa say yani u kala fogaayeen baa loo kala hormariyey lan ruux wuxuu isweydiinayaa marba mid tadani baa loo soo waday macnaha sidaas weeyaan maxaasaa loo yeelay maxaa loo kala cararaya ruuxul batiisaa ku filan xadiid baa meeshaa ku sugan caaisha radi allahu tacaala canha nebigu markuu yidhi sal lla alay waslam dadka maalinta qiyaamada lasoo kulmin doona ayagoo qaaqaawan oo kabala oo aradan oo muxuu ahaaye buuryo qab ah ayaa lasoo kulmin doonaa oo laysu keeni doonaa markaasay tidhi muxuu ah rasuulka ilaahay soo laysdaawan maayo yaa soo rag iyo dumarku isdaawan waa la qaaqaawan yahay markaasuu nebigu sal lla alay slam caaishay arrintu intaa waa ka daran tahay ruux walba maalinkaa tiisaa haysata ruux kansho u haya inuu dad qaaqaawan daawado waa ladnaan soo maa markaad ladan tahay baad wax fiirfiirisaa wax daawataa laakiin markii adiga laguu soo dhigto rabbi sallim sallime orod baad geliya carar ishaadu waxba uma qabanaysaba marka isdaawasha maalinkaa ma joogta wey macna likulli imri'in ruux kasta waxaa u sugnaaday oo minhum iyaga ka mid a yowmaydin maalinkaa sha'nun sha'ni arrin baa u sugnaaday yuqnihi oo ku filan oo kaga filan ama ka deeqaya wixii kaloo dhan kaga filan labaa loo kala baxayaa markaa waa meeshii ugu dambeysay la tegay wujuuhun wejiyaal marka yowmaidin maalinka musfiratun waa mid iftiimaysa wa daaxikatun oo qoslaysa mustabshiratun oo bishaaraysanaysa waa wejiyadii dadkii wanaagsanaa muminiintii saalixiinta ahaa wejiyadoodu maalinkaasi way iftiimayaan inay iftiimaanna waxaa keenaya qalbigoodii ayaa faraxsan faraxa qalbigooda ku jira ayaa wejiga ka muuqanaya wejigiibaa iftiimaya way qoslaysaa daaxikatun waxa horteeda yaaliya barwaaqada ilaahay siiyey naxariista iyo jannadan iyo waxanay ku qoslaysaa mustabshiratun way bishaaraysanaysaa oo yani bishaarada qalbiga ku jirta ayaa wejigana ka muuqata wa wujuuhun wejiyaalla yowmaydin waa gaaladii iyo munaafiqiintii intii la halmaasha oo wujuuhun wejiyaalla yowmaydin maalinka calayha korkeeda waxaa ahaatay khabaratun siigo iyo bus iyo siigaa qarisay tarhaquhaa waxaa daboolaysa qataratun mugdi iyo madow waa foolxumo meeshii ugu dambeysay bay yidhahdaan wejiga intay caro iyo bus kaa fuusho haddana in mugdi iyo madow la sii saaro labadaasaa la isugu darayaa yeeyihiin ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alkafaratu waa kuwii gaaloobay gaaladii waay alfajaratu ee faajiriinta ah alkafaratu waxay leeyihiin waa quluubtoodaa kufriday alfajaraduna waxa weye acmaashooda ayaa fujuur ahayd qalbigooduna gaalay ka ahayn qalbiga xubnahana macaasi iyo dunuub iyo xumaan bay la yimaadeen marka alkafaratu quluubuhum waay alfajaratu fii acmaalihim sidaasaa marka lagu gebagabeeyey labadaa mid unbaa la noqon doonaa natiijada aakharana sidaas weeye bini aadamkan ilaahay tabaaraka watacaala abuurayna ee ka abaaldhacaya ee ilaahay tabaaraka watacaala bedelkii inuu ku shigriyo nicamkiisa ku aqoonsado loo baahnaa la keri la-yahayna asagana halkaasaa u dambayn doonta hada billahi towfiiq wsala allahu wslm wbaaraka calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi waslem بسم الله الرحمن الرحيم شيخ إلهي سبحانه وتعالى أجر أن نسوكو بكر إلهي سبحانه وتعالى كسيو شيخ waxaa jira dhowr su'aalo oo dadka ku xiran page-ka masjidka sigiska ay ku soo qoreen su'aasha koobaad waxay leedahay waxaa iga wareersan dabcan waa gabar waxay leedahay waxaa iga wareersan caadadii oo labadii ama saddexdii maalinba way iga timaadaa dhiig furana ma aha oo waa caadadii waan aqaanaa sheekhow sidaan u soomaa bismi llahi raxmaan raxiim haddii aada hubto inay caadadii tahay intay caadadaasi jirto mana soomi kartid mana salaadi kartid ninkaaguna kuma bannaana caadadu sax way wareertaa inay wareertana inta badan waxaa keena waxyaalaha ay isticmaalaan dumarku oo u badan waxyaalahan ama dhalmada lagu kala fogeeyo ama dhalmada lagu gooyo waxyaalahaasaa inta badan keena inay caadadu wareerto almuhim haddaad hubto inay tahay caadadii oo wareersan oo ku haysa intay ku hayso mana soomi kartid mana salaadi kartid ninkaaguna kuma bannaana sidii adoo caado qabo oo kalaata wallahu aclam jasaaka allahu khayran
saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh anoo sooman madaxa ma iska toobi karaa masalada toobinka waa masalo khilaaf ku jiro fuqahada dhexdooda soonka ma jabiyaa mise ma jabiyo waxaa la mida dhiig badan in jidhka laga saaro xadiid baa nebigu sal alla alay wasalam sugan uu leeyahay nebigu wuxuu soo maray laba nin oo istoobaya kadibna wuxuu yidhi aftara alxaajimu waalmaxjuum kan toobaya iyo kala toobayaba waa afuray soonkii waa ka jabay xadiidkaasi fuqaha badan baa ku tegey oo inuu toobinku soonka jabinayo xadiid kalea jira oo anas warinayo oo uu leeyahay arrintaas oo inuu toobinku soonka jabinaya ah waxaa ka dambaysay nebigoo sal alla alay wasalam ruqseeyey oo oggolaaday dadka sooman inay istoobi karaan xadiid kalea jira bukhaariga ku yaallo nebigu uu leeyahay nebigu sal alla alay wasalam saxaabigu uu leeyahay nebigu wuu istoobay isagoo sooman warka marka la soo ururiyo wuxuu noqonayaa mas'alada toobinka iyo dhiig in la iska saaro inay soonka jabisaa waa laga dambeeyey oo waxaa ka dambeeyey in la ruqseeyey oo la idmay sidaas daraaddeed soonka ma jabinayo toobinka iyo dhiig jidhka ka baxay toona sidaasaa ila xoog badan waase masale khilaafiya wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh saa'ilkan kale wuxuu leeyahay waxaan ka boogoobay afka oo nabara iga soo baxay dhakhtarkiibaa wuxuu ii soo qoray dawada lagu luqluqdo marka anoo sooman ma isticmaali karaa dawada haddii ay tahay uun luqluqasho kadibna aad iska tufayso dhib ma laha waxaad ku dadaalayiin inaysan hoos u gudbin oodan liqin leanno afka waxyaalaha soonka jabiya hadduu afka galo oo ka soo noqdo soonka ma jabinayo waa luqluqashada biyaha oo kale markaan weysaysanayna waa luqluqanaynaa biyuhu weysada way jabiyaan maalan cunto intaad dhadhamisay aad tijaabisay oo kale aad iska tuftay shay maalan afkaaga galood soo tuftay soonka ma jabinayo marka hadday tahay mujarad luqluqasho kadibna aad soo tuftay hoosna aan u gudbin oodan liqin soonkaagu waxa ma noqonay waad samayn kartaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay waa gabar baa soo qorta waxay leedahay aabbahay in badan ma soomin mana salaadin wax cudurdaar ahna ma lahan marka sheekhow ma ii sheegi kartaa qaab aan ugu gudbin kara soonka iyo salaada maxaa yeelay kurbo ayuu igu hayaa ha la waaniyo ha loo naseexeeyo hidaayada ilaahay baa haya ruuxaan salaad tukanaynin oo aan soomaynin muslim ma aha salaada keliya tegitaankeeda nebigu ku tilmaamay inay gaalnimo tahay soonkiina haddana hadduu ku daray uusan soomaynin ruuxaasi muslim ma aha laakiin waxaa waajiba in loo naseexeeyo oo la waaniyo oo si alla sidii wax loogu sheegi karo wax loogu sheego lagu dadaalo ilaahay baa hidaayada iyo hanuunka haya laakiin waxaa dhici karta in ilaahay soo hanuuniyo hidaayada ilaah baa haya yacni hadal dabacsan oo aan adkayn oo muxuu ahay sasab ku jiro oo xikmadaysan mar walba waxa loogu gudbiyo maxaa yeeley ilaahay tabaaraka watacaala fircoon oon ogeyn inuu ilaahnimo sheegtay ana rabbukum alaclaa yidhi ayaa ilaahay tabaaraka watacaala markuu muuse iyo haaruun dirayay calayhim aw calaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu u diray wuxuu ku yidhi faquulaa lahu qowlan layinan lacalahu yatadakaru faquulaa lahu qowlan layinan yacni hadal dabacsan ku dhaha inuu waana qaataa dhici karta ilaahay waa ogyahay inuusan waana qaadanin fircoon oo gaalnimo ku dhiman doono laakiin rajagelin baa meeshaa ku jirta ruuxa sidiisa marka lagama quusto si kastoo uu dembi badan yahay si kastoo u khariban yahay ruuxa inta uu nool yahay waa suurtagal in ilaahay hanuuniyo marka ku dadaala uun insha allahu tacaala nacam sheekh ilaahay ha ku barakeeyo saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekhana af carabiga ma garanayo ilaahayna inaan u dan sheegtaan rabaa af soomaali ilaahay ma ugu dan sheegan karaa anoo sujuudsan ma ku ducaysan karaa masaladaasi marar badan bay soo noqnoqotay af aan carabi ahayn salaada dhexeeda ma lagu ducaysan karaa horaan waxaa ila xog badnayd inaysan runtii waxaan luqa carabi ahayn salaada gudaheeda aan lagu ducaysan karin gadaal dambe baxti dheeraadan sameeyey masalada khilaaf baa ku jira saddex ra'yi baa la isugu khilaafsan yahay qole waxay leeyihiin sideedaba ma dhici karto in luqad aan carabi ahayn salaada dhexeeda
duco ama si kaleeta ay usoo gasho raayina wuxuu leeyahay maya xataa hadduu carabiga yaqaano wuu ku ducaysan karaa luqooyinka kale raayina wuxuu leeyahay maya haddii uusan ruuxu uusan garanaynin carabigii uu xaajadiisa ilaahay ugu bandhigan lahaa salaada dhexdeedana khaasatan markuu sujuudsan yahay wa aqrabu maa yakuunu alcabdu ilaa rabbihi yani waqtiga rabbigii ugu dhow yahay way ducadana ugu dhowdahay in la aqbalo faqaminun an yustajaab waa xilligay ugu dhow yahay in ilaahay ka aqbalo marka halkaasuu rabaa inuu baahidiisa iyo duruuftiisa ilaahay u sheegto oo baryo luqadii carabiga ahaydee ku saacidayn lahaydna ma garanayo waxay leeyihiin xaaladaas iyada oo kale culimmadu waxay leeyihiin waa loo ogolyahay markaa inuu luqad kale oo aan miduu garanayo oo aan carabi ahayn inuu ku ducaysto ra'yigaas baa marka dhexdhexaad ah qolada wada diidan iyo qolada wada ogol iyo qolada cidda uun aan carabiga garanaynin u ogolaanaysaa saddexaasaa laysugu khilaafsan yahay tanaa marka dhexdhexaada leanna waxaa jirta ruuxu markuu wixii laasimka ahaa waayo marar badan bay shareecadu waxay u ogolaanaysaa wax kale ay siinaysaa xataa waxay leeyihiin waa ka nebigu sal lla alay slam ruuxu markuu faatixada uusan aqoonin yani adkaar kale loogu bedelo ilaa faatixada uu ka baranayo laakiin waxaan dhihi lahaa maadaama hadalba galay way fududdahay in ducooyinka carabiga la bartay jawaamicda ha lagu dadaalaan dhihi lahaa insha allahu tacala iyaga hala barto wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa-ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh awal masaajidii ayaan taraawiixda u aadi jirnay masaajidiina waa la xiray laakiin xaaskayga ayaa qur-aanka xifdisan iyada ma i tujin kartaa hadday maya tahay aniga inay i tujiso caruurta ay dhashay oo wiilal ay ku jiraan miyay tujin kartaa xadiis baa jira abu daawuud iyo keyrka ay warinay ahlu sunanka xadiidu muwaraqa waa xadiis sugan muwaraqa gabadh waxay ahayd saxaabiyaadkii hore oo qur-aanka baratay ninkeeda iyo caruurteeda iyana maysan aqoonin qur-aanka qadarkii la rabay ama marka nebigu wuxuu ku yidhi wuxuu u ogolaaday ama u idmay in ay ehelkeeda guriga inay tujiso maadaama iyadu qur-aanka ay taqaano halkaasay fuqahada qaarkood ka qaadanayaan haddii ay maamada gurigu qur-aanka taqaano ninka iyo caruurtuna aysan aqoonin in ay tujin karayso oo xadiiskaas umuwaraqa ee sunanka ay sunanku wariyeen oo xadiis saxiixa ah ayay u daliishanayaan culimada qaar ka mid ah laakiin waxaan dhihi lahaa haddii xataa qur-aanka wax uga bilaaban yihiin oo qur-aanka uu sixi karayo misxafka si fiican uga akhrin karayo hadda way fududdahay yani waxa weye mobaylkayba qur-aan ku jira ha ka tukado isagu ha tujiyo yani waxa weye misxafkana qur-aanka ha ka akhriyo hadduusan ka akhrin karaynin oo caruurtiisa ay jiraan kuwo qur-aanka yaqaana iyagu ha tujiyeen hadday intaa midna jirin maamadu ha tujiso leanna isaga qur-aankii ma uu garanayo qaar ahaan hadday salaadu salaad tahay salaad ama taraawiix ama salaad sunna a tahay kuma sii jirto wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayr aljaza saa-ilkan kale wuxuu leeyahay sheekhana salaada witirka in 3 ragco la isku xiro oo nitaxyaad loo dhexaysiinin iyo in la kala jaro labaduba miyay soo aroortay midna ma laazimi karaa ama inaan 3daba isku xiro ama aan kala jaro hal xabo ma laazimi karaa labaduba horta way bannaan tahay witirka inaad hal ragcada gooni ka dhigto waad heli kartaa 3 isku xidh inaad ka dhigto waad heli kartaa 5 isku xidh inaad ka dhigto waad heli kartaa 7 isku xidhan waad ka dhigi kartaa 9 isku xidhan waad ka dhigi kartaa kulli dalika nabiga ka sugantahay sallallahu alayhi wasallam haddii aad kala goysood ka dhigto 2 ragcadood oo gooniya iyo hal ragcad oo gooniya waa sida fadliga badan oo dee camal ziyaada baa ku jira taxiyaad ziyaaday waxbay wadataa haddaad isku xidhana nabiga ka sugantahay sallallahu alayhi wasallam laakiin taxiyaad dhexda ma gelinaysa maqribka ugu ekaanin marka way banaantahay kulli haddaad mid kamida ku gaabsato waad heli kartaa laakiin sida fiican haddaabad wada garanayso sunnooyinka noocaasa ee nebiga ka soo arooray ee khiyaarka ah waxaa fiican inaad kolba mid qaadato si aad sunnooyinkii ugu wada dhaqanto mar muxuu ahaayey xidhiidhi mar kale goo si alla sidii muxuu ahaayey si aad sunnadii nebiga sal alay slam kulli aad ugu wada dhaqanto ajirkeedana u wada hesho saasaa fiican laakiin hal miduun haddaad qabsato taa uun ku dhegtana dhib ma lah waa la ogolyahay macnaha nacam jazaaka allahu khayran sheekh saa-ilkan kale wuxuu leeyahay xadiid nebi ayaa wuxuu ahaa ruuxii safka salaada gooyo ilaahay ha gooyo ruuxii xiriiriyana ilaahay ha xiriiriyo
haddeer masaajidda kuwooda lagu tukado ama meelaha qaar aan ku tukanno dadkii way kala durkaan oo iskuma soo dhowaadaan markasoo lagama yaabo inaan xadiidkaas habaarkiis uu nagu dhaco waxaa ka maqan waxa su-aasha soo qoray shareecada axkaamteeda ayaa qaarna waxay ku saabsan tahay xaalatu اlikhtiyaar qaarna waxay ku saabsan tahay xaalatu اlidiraar ama xaalatu اlxaaja markii ayna wax mushkila a jirin oo duruuftu caadi tahay safafka in laysku dhajiyo waa laazim waa waajib maxaa yeelay nebiga sal lla ly slam xadiis fara badan baa kaga soo aroortay in dadku isku dhagaan isku dhowaadaan waa amri jiray muxuu ahaay haddii safafku iskhilkhilaafaanna qulubtu iskhilaaftaa ka dhalan habaar baa ku yimid marka waa in safafka la isku dhoweeyo markay duruuftu caadi tahay hadday timaado duruuf keenaysa in dadku kala fogaadaan jiray kala qaadayaan xanuun baa laga baqay muxuu ahaay khatar kalaa imaanaysa cabsi kalaa timid markaasi waa xaal istinaa'iya waay xaaladda noocaas oo kaleeta marka shareecadu rukhas bay bixinaysaa waxay keenaysaa way raadinaysaa qaab salaaddii jamaacadana lagu xifdiyo dadkii u wada tukadaan mafsadadan iyo dhibkan laga baqayana lagu baajiyaa la raadinaya markaasoo kaleeta way imaan kartaa ijtihaadaadkan ah in la yidhaahdo ha la wada tukado wixii laga baqayeyna si laysaga ilaaliyo looga taxadaro ha la kala durko markaasi xaalad caadiya ma ah nusuustani marka waxa weeye waciidka edagay soo arooraysa waxay ku soo arooraysaa xaalad ay duruuftu caadi tahay ama hadday caadiga ka baxdo duruuf ay soo kordho istinaa'iya timaado marka iyadu axkaamteeda ay qaadanaysaa taysiirkii shareecada ayay aadaysaa waxay aadaysaa nusuus kaleeto oo markaasi maxaa wiqaaye iyo ku saabsan iyo halkaasay marka aadaysaa nusuus kale aadaysaa tii caadiga ahayd markaasi waxa way ka baxaysaa oo waciidkaasi markaa ma qabsanayo maadaama ay yani nusuus kale ay markaasi ku camal falayaan nusuustii taxadarka nusuuskii cabsida nusuustii maala xaajada iyo daruurada xaggaa la aadaya markaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aalta u yaro dhow waxay leedahay waxaa jira xadiid dhahay ruuxii aan tukan 3 jimco oo isku xigta qalbigiis ayaa engegaya haddeerna masaajidii way xiran yihiin ma laga yaaba inuu qalbiga na engego tii horey la mid tahay oo marka ay jumcada ay waajib kugu tahay waa markaad heli karto meeshaad ku tukanaysa aad tukan karto waa haddii aad meeshaad ku tukanaysay la waayo masaajidaad ku tukata la waayo shuruudaheedii la buuxin waayo markaa kadib jumca kuguma waajibaysee duhur baa kugu waajibaya laanna wax weeyaan waciidkan 3 jumca ruuxay dhaafto iyo jumcada ruuxii ka taga waa goorma waa markaad kari karto waa markaad awooddeedii leedahay waa markaad heli karto waa haddii aad heli weydo ama aad weydo ama ay suroobi weydo marka laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha fattaquu llaha ma statactum waay idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum waay karaan bay ku xidhan tahay iyo awood bay takaaliifta shareecadu ku xidhan tahay haddii awooddeedii aad weydo ama duruufteedii ay saamixi weydo ama duruuftu kuu saamixi weydo marka mukallaf kuma tihid laguma haysto markaa waxaad qaadanaysaa tii ay shareecadu kuugu bedashay baad markaa ku bedelanaysaa oo ah inaad duhurkii tukato haddaad heli karto meelaad ku tukato jumcadii oo markaasi suurtagal ku ah markaasi waxa weye adiga khiyaarkaaga markaa aad kaga baaqatood ku dayacdo marka waciidku waa ku qabsanaya markaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay aabbahay baa wuxuu u dhintay cudurkan coronavirus wuxuuna ka tegey alaabo qaali ah waxaana la dhashay wiil aan qaangaarin dadka qaraabada ahaana waxay soo ururiyeen lacag loogu talagalay tacsi lacagtaa tacsidoo soo aruurtay duqa miyaan u sadaqayn karnaa mise waxay gelaysaa dhaxalkii haddii ay dhaxalka gasho oo layihahdaa dhaxalka ha loo qaybiyo wiilkan yarka ee aan qaangaarin ma waxaa la sugayaa ilaa uu ka qaangaaro mise hadda isagoo yarba dhaxalka waan qaybsan karnaa waa dhowr masalo isa saaran waa midda koowaad ee horta odayga dhintay waxa loo soo ururiyey hadday tahay intuu noolaa wax loo soo ururiyey oo soo ururay hadduu yahay noloshiisa ku soo gaadhay isagaa iskale waana laga dhaxlayaa markuu dhinto hadday yihiin wax la soo ururiyey geeridiisa kadib meyd wax ma mulkiyo dadkii soo ururiyey niyaday ugu talagaleen baa markaa lagu bixinayaa hadday dadkii uu ka tegay ugu talagaleen iyagaa iska leh
hadday dadka qaar ka mida u soo ururiyeen ayagaa iska leh hadday kulli ugu talagaleen kulligood baa qaybsanaya dhaxal ma aha markaas dhaxal ma aha sidii dadkaa soo ururiyay ee ugu talagaleen mucaawano hadday ugu talagaleen mucaawanadaa cidday ugu talagaleen baa qaybsanaysa leanna mayd wax loo soo ururiyo markuu dhintay kadib wax la soo ururiyo ma milkiyo hadduusan milkiyinna lagama dhaxlo taa waa mas'alada labaadi wax weeye dhaxalka caruur aan qaangaadhin hadday joogaan ma la qaybinayaa mise intay qaangaadhayaan baa la sugayaa maya waa la qaybinayaa ruux walba xaqiisa ayuu qaadanayaa caruurtan aan qaangaadhinna cidda mas-uulka ka abaa waxooda loogu dhiibayaa bal iska dhaaf caruur aan qaangaadhin oo bannaanka joogta iska badaaye ilmaha uurka ku jira lala sugi maayo qaybinta dhaxalka qaab waxaa jira loo qaybiyo oo ilmaha uurka ku jira in la garan maayo ma wiilbaa ma gabadhbaa ma nabad buu ku imaan ma meeshuu ku dhiman lama oga laakiin qaab baa jira cilmiga faraa'idka zake loo qaybiyo dhaxalka loo qaybiyo oo wixii isaga loogu talagalay ee ku soo hagaagayay ayaa meel la dhigaya kadibna waa la sugaya inta kale dadkii iska lahaa la dhihi maayo kan uurka ha dhashay ma qaybsanaysaan kan haqaan gaadhay waad sugaysaan la dhihi maayo fawran markuu meydku dhintaba dadkii xuquuqdan iska lahaa waa loo qaybinayaa inay qaybsadaan oo ku kala baxaan hadday iyagu sugayaanoo ay isugu sii jirayso waa khiyaar way heli karaan laakiin ciddii tidhaahda waxayga hallaysiiyo anigu ma sugaye la dhihi maayo hebel haqeen gaadho la dhihina maayo uur baa jira ha dhasho qaabkii shareecadaa taqaana qaabkay u qaybin lahayd waa la qaybinayaa markaaba wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa-iilkan kale wuxuu leeyahay sheekh waxaa jira masjid laga dhisiyey magaalada muqdisho odayaashii guddiga ahaa way dadaaleen laakiin weli waxbaa ka dhiman dhismihii masjidka odayaashii guddiga ahaa waxay istuseen inay u kaashadaan culimo kale oo la ururisa lacagta markay lacagta lasoo ururiyana baasinta laga siiyo culimmadii lacagta soo ururisay arintaana waxaa laga isticmaalaa inta badan tiifiyada soomaalida in culimada wax soo ururiyey lacagta masaajidka soo ururiyey baasinta laga siiyo diinta maxay ka qabtaa haddii ay tahay dad ujara oo la dirsaday laba arrimood bay kala tahay inuu ruuxu marka hore culimonimo iyo weji samafal iyo khayrdoon baan ahay iyo ilaahay dartii baan u shaqaynayaa inuu ku howlgalo kadibna markii wixii soo yimaadaan uu wax sheegto iyo inuu marka horeba nin shaqaysanaya yahay oo uu yidhaahdo aniga shaqadan waan gelayaa aan gale waxaan u baahnahay oon shaqadan ku galayaa wakhti baan bixinayaa juhdi baan bixinayaa waxaan yacni waxaas iyo waxaasaa ama wax joogtaa ama wax baasantiya waxaa hallaysiiyo labadaasay kala tahay hadduu ruuxu marka horeba ujuuro lagu dirsado ama mushaar la siinayo ama muxuu ahaaye wax la isku ogyahay lagu heshiyo saa uu ku howlgalo haddii wuxuu ku howlgalay buu leeyahay laakiin waxaa laga maarmaana dadka wax laga soo ururinayo wax laga soo qaadayo waa inay fahamsan yihiin ama ay og yihiin xoolaha laga ururinayo qaar ka mida inay u bixi doonaan kharash noocaasa u bixi doonaan waxaa aniga kolley xaraj badan aan ka dareemayaa in dadkana loo muujiyo in wadaadku uu muxsin yahay oo ilaahay dartii u shaqaynayo maamulkan masaajidkuna sidoo kale muxsin oo ilaahay dartii u shaqaynayo dadka wax bixinayana aynan ogeyn oo laga yaaba hadday ogaan lahayn inay wax qaadanayaan inaysan wax bixiyeenba dhici karayso meeshaasi waxoogaa waxaa igula jirta shubha igula jirta sidaas daraaddeed in la caddeeyaa fiican ciddii la dirayo ciddii wax soo ururinaysa ciddii shaqo gelaysa inay caddahay ujuuraday qaadanayso oo ay wax cad iyo heshiis cad uu ku howlgalo ididkiisa wuxuu helo waa nin marka adduunkiisa u shaqaysanaya waa nin adduunkiisa u shaqaysanaya shaar qaadanaya basanti qaadanaya wax raadiisa juhdigaa bixinaya wey sidaana wax ku qaadanaya wey wax laysku ogyahay buu ku howlgalaya laakiin marar badan waxaa dhacda in wixii inta yani la dado layska howlgalo hadhowna ay dhici karayso xoolihii dadweynaha laga soo ururiyey masjid iyagu ay u bixiyeen inteeda badanba inay kharash u kacdo oo wadaadkii wax ururinahayy telefishinkii wax ka ururinahayy muxuu ahay qolihii kaalmaynahayy kulli wixii in la qaybsado kadibna meeshii wax loo ururinaya wax ku hagaya inuu yaraado haddii suurada noocaas oo kale waayahan dambe weliba aada u soo badatay waxaa aniga taqriiban qanaacadayda
inay khaldan tahay baa ii muuqata wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. laba su-aalood oo ugu dambeysa su-aasheeda koowaad, saa-ilkan wuxuu leeyahay sheekh, anoo salaada ku jira ayaa hadal iga soo fakaday soomaali ah si kadis ah anoon is ogeyn, marka salaaddii may iga jabaysaa? wixii aan ku talagal ahayn salaada ma jabinayo. waquumuu lilaahi qaanitiin aayaddaa markay soo degtay baa aamuska la faray saxaabada ridwaanullahi calayh. haddii ruuxa jahli u geeyo ama kelimadu ka soo boodo ama halmaan isagoo ishalmaansan ka soo baxdo salaadiisu jabi mayso. waxaa daliil u ah xadiidkii mucaawiya mucaawiya nin saxaabada ka mid u ahaa, nebiga iyo saxaabadiisu la tukanayey, kadibna wuu hindhisay, nin baa hindhisay, ninkii markuu hindhisay buu alxamdulilah yidhi, markaasuu wuxuu ku yidhi yarxamuka allah, salaaduu ku jira. markuu u duceeyey ayay dadkii fiirfiiriyeen. markuu arkay dadkii soo fiirfiirinahayay salaada ku jiray, markaasuu wuxuu yidhi hooyadiin idin weyday maxaad iga fiirinaysaan, maxaa iga fiirfiirinaysaan buu ku yidhi, wuuba sii hadlay. markuu salaaddii nebigu ka baxay sal alla alay wasalam ayuu u yeedhay, markaasuu wuxuu ku yidhi salaada looma ogola hadal, muxuu ahaayey si fiican buu nebigu u tacliimiyey sal alla alay wasalam. oo markuu leeyahay weligay ma aanan arkin macallin ee ka fiican nebi moxamed sal alla alay wasalam. marka nebigu waa toosiyey, salaaddii soo celi muusan dhihin, salaadda dhexeedu ku hadlay, leanna wax wey waxaa u geeyey aqoon darra u geysay. marka haddii ama hadal kaa soo fakado ama aqoon darra kuu geyso ama halmaan kuu geeyo, salaadu jabi mayso insha allahu tacala, wallahu aclam. su-aasha ugu dambeysa barnaamijkeena galabta waxay leedahay sheekh, gows ayaa i xanuunaya, waxay leedahay aabbahay oo dhintay xoolihii uu ka tegey ayaan masaajid ugu dhisnay intaan dhaxal ahaan loo qaybinin, ee arrintaa ma saxba? xoolaha hadduu meydku ka tago isaga wax looguma dhisi karo, loomana sadaqayn karayo, allaahuma hadduu dardaarmay oo uu 3 meelood meel buu xaq u leeyahay inuu dardaarme. haddii uu dardaarmay wixii uu dardaarmay dardaarankii waa laga fulinayaa, oo 3 meelood meel hantidiisa ah, wixii ka siyaadsan maya. hadduusan dardaarmin iyo wixii 3 meelood meel ka siyaadsanba dhaxal weeye, maadaama ay dhaxal tahay oo markuu naftu saa uga baxdaba milkiyadu isaga waa ka wareegaysaa. dadkii dhaxalkiisa lahaabaa milkinaya xoolahan oo isku leh, iyagay marka la jirtaa. iyagu wixii milkigii ku soo wareegay ee dhaxal u qaateen hadday markaa u sadaqaynayaan way heli karaan. waa hadday ehel u yihiin tasarufka noocaasa, hadday ehel u yihiin oo ay dad waaweyn oo qaangaadha yihiin. hadday qaangaadh yihiin way u sadaqayn karaan, way u bixin karaan, xoolahoo dhan bay u sadaqayn karaan. hadday uu ku jiro caruuraan qaangaadh ahayn, hadday ku jirto lama bixin kara iyaga waxooda, lamana sadaqayn karayo. aabbana looma sadaqayn karo, hooyana looma sadaqayn karo dhimatay. caruurta yaryarkeen qaangaadhin waxooda ayaga iskale. markay qaangaadhaan ayagu ama ha sadaqeeyeen ama iyagu ha isticmaalaan. laakiin dadka qaangaadhka ah wixii dhaxal ku soo hagaagay way u sadaqayn karaan, dadkii xoolahaasi asalaan ka soo jeedeen ama cid kaleba way u sadaqayn karaan wixii iyaga ku soo hagaagay dhaxalkooda ah. wallahu aclam. daawadayaal, su-aalihii aad noogu soo dirteen bejka masjidka sigiska iyo tafsiirkii ka horreeyeyba ee uu noo soo jeedinayay sheekheena sheekh maxamed cabdi umal xafidahu llahu tacaala. galabtu annaga intaan dib ugu kulmi doona barnaamijkan oo kale ah waxaa idinkaga tegaynaa sidaa i nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.